waxaa jiri jiray 2 gabdhood oo walaalo ah. waxaa lagu kala magacaabi jiray Xamdi iyo Xanaan. maalin maalmaha ka mid ah, Xanaan ayaa aad u xanuunsatay, in badanna way xanuunsanaysay. walaasheed Xamdi oo ag joogta ayaa ku tiri, "Abbaayo, goormaad caafimaadaysaa?" Xanaan waxay ugu jawaabtay, "Abbaayo, aniga ma caafimaadayo, laakiin geedkaas markay caleenta ugu dambaysa ka dhacdo ayaan geeriyoonayaa." walaasheed Xamdi oo aad u murugaysan ayaa tiri, "Haye." bilo iyo maalmo kadib ayaa ka soo wareegatay. geedkiina maalin walba caleemo badan ayaa ka daata ilaa ay ku soo hartay hal caleen. Xanaan waxay aamintay in nolosheeda oo dhan in caleentaasi inta ay dhici lahayd uga hartay, laakiin caleentii ayaa go'i weyday. Xanaan way bogsatay, waxay markiiba ku dhaqaaqday dhankii caleenta. waxay ogaatay caleentu inay ahayd caleen caagad ah oo geedka lagu dhajiyey. walaasheed Xamdi ayaa ku dhajisay si ay niyadda ugu dhisto. walaalnimadu waa lama huraan.